aqyaaray soo dhawaada meel kasta waad joogtaan caawa adduunka waxaad moodaa xiisad kale oo cusub in loo abuuray dalka Mareykanka waxa uu degniin adag u jeediyay Pakistan waxana uu ku yiri gantaalada ka gudba qaaradaha ee madaxa looga xiri kara nuclearka 5,000 kilomitir gaaraya ma samaysan kartaan Trump markan waxa uu bixinayaa hadal iyo amaro adag oo ku socda dawladda Pakistan waxay ka dhigan tahay Pakistan in tijaabo military la gali doono wax u dhigma sida Iran oo kale barnaamijka ayaan ku falanqeyn doonaa qodobkaasi oo aan si gaar ah uga eegi doonaa caawa waxaan sidoo kale falanqeyn doonaa khudbadii xasaasiga ahayd oo maanta jeediyay Ayatollah Ali Khamenei ninka ugu sareeya kacaanka jamhuuriyadda islaamiga ah ee Iran waxa uu leeyahay dawladda dhalanteedka ah ee Israel waxaynu gaarsiinay ilaa aan ku dhaweyno in adduunka laga waayo Mareykankuna waxa uu la kulmay darbaaxooyin adag oo mustaqbalkooda gobolka bariga dhexe halis geliyay Iran ma aha dal isdhiiba oo lagu degdego hadalkaasi sidee bay u fasirayaan warbaahinta iyo falanqeeyaasha waaweyn adduunka barnaamijka ayaan caawa ku faaqidi doonaa waxaan sidoo kale inta aan wada joogna akhyaaray aan fiiri doonaa wararkii ugu dambeeyay bariga dhexe xaaladda gobolka iyo waliba loolanka siyaasadaha diblomaasiyadda iyo ammaanka Cabdicasiis Barrow ayaan ahay waxa daawanaysa barnaamij iyo talaabooyinka military uu qaadayo markan waxa uu furay albaab kale oo dooda iyo waliba talaabo u dhaweynaysa in Mareykanka uu qaado dagaal military oo ka dhana dawladda Pakistan isaga oo kulan xasaasi ah la yeelanayay generaalka ugu sareeya ciidamada dalka Pakistan Qasim Munir ayuu Trump waxa uu yiri Qasim Munir in kasta oo aad saaxiibkay tahay oo aan si weyn isugu fiicanahay haddana waxaan ka warhayaa inaad sameeynaysan gantaalka la yiraahdo ICBM oo ah gantaal ka gudba qaaradaha oo madaxa horena looga xiro bambooyinka nuclearka haddii ay taasi dhacdo waxaad noqonaysaan cadow istiraatiiji ah oo Mareykanku uu yeelanayo mana aha wax la aqbali karo ayuu hadalkaasi ka sheegay xilli qada uu u sameynayay generaalkaasi uu si gaar ah Mareykanka uga casuumay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump hadaladiisu waxay u muuqdaan Pakistan in ay markan galayso tijaabo military ila dhinaca sirdoonka ah ayaa u sheegay wargeyska The Foreign Policy ila dhinaca sirdoonka ah ayaa u sheegay wargeyska The Foreign Affairs in ciidamada dalka Pakistan warshadahooda wax soo saarka ay ku dhow yihiin in gantaalkaasi ICBM liiraado ay soo saaraan haddii se gantaalkaasi ay gacanta ku dhigto dawladda Islaamabad waxay ka dhigan tahay cadow istiraatiiji ah oo gobolka koonfurta Aasiya ka soo baxay oo barbar yaalla Shiinaha Hindiyana qatar gelinaya suuragalna ay tahay Mareykanka inay garaacaan Pakistan haddii ay gantaalkaasi hesho waxay la mid noqonaysaa wadamada Shiinaha dalka Ruushka iyo sidoo kale dalka North Korea oo Mareykanku ay hadda si weyn isku hayaan haddaba muxuu yahay gantaalka aadka looga baqayo ee Trump uu leeyahay dalka Pakistan ma samaysan kartaan gantaalka waxa la yiraahdaa ICBM waa gantaal baaxad weyn leh oo ridadiisu ay gaarayso 5,500 oo kilomitir haddii laga rigo gudaha Pakistanna si weyn u garaaci kara gudaha wadanka Mareykanka maxaa ka yaabiyay dalka Mareykanka maxayse tahay dooda hadda keenaysa Trump inuu arrimahaasi banaanka keeno Pakistan wali ma saxin heshiiska xakamaynta nuclearka NPT la yiraahdo ama kan kale ee la yiraahdo CTBT taasi oo tilmaamaysa in Pakistan markasta ay qaadi karayso talaabo military haddii Pakistan ay hesho gantaalka la yiraahdo ICBM Mareykanku waxa uu ku qasban yahay in uu la dhaqmo sida cadow nuclear ah sida ay sheegeen saraakiil sare oo sirdoonka wadanka Mareykanka ka tirsan ee la hadlay wargeyska The Foreign Affairs waxa kale oo la sheegay in Shiinuhu si hoose uga caawiyo Pakistan dhinaca tiknoolajiyada gantaalkan halista ah oo hadda qalqal gelinaya dawladda Mareykanka Islaamabad ayaa laga shakisan yahay baaliyay inay doonayso inay ka hortagto faragelin kasta ee Mareykanku uu ka sameeyo mustaqbalka haddii ay talaabooyin military ka qaadaan gudaha wadanka Hindiya isla markaana dagaal weyn oo gobolkaasi ka dhaco
haddaba xaggee maraya mashruuca gantaalkan dowladda Mareykanka halista weyn gelinaya inkasta oo aan faahfaahin rasmi ah laga hayn gantaalkan goorta la bilaabay isla markaana aan loo soo bandhigin dhismihiisa shacabka wadanka Pakistan haddana dowladda Islaamabad waxay u muuqanaysaa militarigeeda in ay sameynayaan tallaabooyin hoose oo ay kala shaqeynayaan dowladda Shiinaha taasi oo Mareykanka gelisay qalqal weyn kadib markii hay'adda CIA-da Mareykanku ay heshay xogta gantaalkan iyo waliba in qalab kasta oo lagu farsameyn karo hadda ay gacanta ku hayso dowladda Pakistan sidoo kale horumarka gantaalkan iyo kubcintiisa waxa uu soo baxay markii dalka Hindiya ay ku dhawaaqeen howlgalkii la oran jiray Sindoor ee looga hortagay howlgalkii ay ku dhawaaqeen Pakistan ee la oranaya Bunyanul Marsus ee ahaa dagaalkii labada dhinac Islaamabad iyo New Delhi u dhaxeeyay kaasi oo ka bilowday gobolka la isku haysta ee Kashmir markii awoodda Pakistan ay banaanka u soo baxday Mareykanka waxa ay bilaabeen inay si degdeg ah arrinta u soo farigeliyaan si weyn oo qoto dheerna loo baaro gudaha wadankaasi Pakistan doorka Shiinaha ayaa la tilmaamayaa inuu yahay kan ugu ballaaran ee gantaalkaasi lagu dhisayo Shiinahu waxa uu doonayaa in si ka u dhigma baleeyay wadamada Ruushka iyo Shiinaha ay dalka Pakistan noqoto wadamada Mareykanka hadda uu arkaya cadawga maadaama gantaalahooda ay hadda dhisayaan dalka Pakistan waxa uu kamid yahay wadamada haysta nuclear-ka ee sida weyn caalamka looga boqo inay dhaqdhaqaaqyo sameyn karaan Pakistan ayaa nuclear-ka qorshaysay inay dhisaan wixii ka dambeeyay sanadkii 1970kii xilligaasi oo dowladda Hindiya waa 1974 ay tijaabisay gantaalkii ugu horeeyay nuclear laakiin dowladda Pakistan iyo Abdulqadir Khan oo muddo dheer arrimahaasi ka shaqeynayay sanadkii 1998 dhamaadkii qarnigii tagawayane ayaa waxay dhiseen gantaalii ugu horeeyay oo nuclear iyo bambooyinkii ay sameeyeen 170 bam oo nuclear ayaa warar ku sheegayaan in Pakistan ay hadda gacanta ku hayaan haddaba maxaa kulmiyay sacan naasa adag iyo weedha Trump waa dooda ugu ballaaran ee hadda horta la warbaahinta adduunka sida la socotaan Donald Trump Pakistan ayaa waxa uu hadalkan u jeedinayaa iyadoo dhawaan la soo gabagabeeyay dagaalkii u dhaxeeya Israel iyo sidoo kale Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran dagaalkaas oo soconaya muddo 12 maalmood 13 bishan aynu hadda ku jirnana ka bilowday gudaha wadanka Iran kadib markii diyaaradaha dagaalka Israa'iiliyiintu ay garaaceen xarumaha nuclear-ka iyo waliba goobo ay deganaayeen Israa'iil iyo aqoonyahan kale oo Iiraaniyiin dagaalka ayaa noqday mid baahay iyadoo Mareykankuna uu soo fargeliyay oo uu weeraray xarumaha Natanz, Fordo iyo waliba xarunta nuclear-ka ee Isfahan intaasi markay ay dhaceen kadib Pakistan waxay ka mid ahayd dowladaha sida dhabta ah u sheegay inay garab istaagayaan wadanka Iran hadda waxay u muuqataa Mareykanku inuu ka leeyahay digniintan laba istiraatiijiyad oo waaweyn waa mid in Pakistan tabar ahaan loo tuso in digniintii ay jeedisay ee ka dhanka ahayd reer galbeedka la dareensiyo in mustaqbalkooda uu taaban karo iyo kan kale oo ah in dowladda Mareykanku aysan ogolaan karin in dowlado ku yaala Aasiya ay sameystaan hub culus marka laga reebo dalka la yiraahdo Shiinaha oo hadda awoodiisa Mareykanka ay aadka ula loolamayso Pakistan oo gantaalahan hesha waxay ka dhignaan karaysaa dowlad quwad leh oo saameyn ku yeelata go'aamada waaweyn ee adduunka waxaana ay soo fariisan doontaa meelaha ay hadda fadhiyaan dalalka la yiraahdo Shiinaha Ruushka Mareykanka North Korea iyo sidoo kale wadamadan awoodooda lagu dhicin ee ku yaala qaaradda Yurub waan filayaa digniinta loo jeediyo Pakistan iyo waliba kulankii Asim Munir oo qaybta ka ahaa ee Trump hadalkan uu ka jeeday inaad faham weyn ka qaadatay sababta Asim Munir loo casuumay ayaa qudheeda khubaradu waxay ku tilmaamayaan inay tahay mid aanay fahmi karin xitaa dowladda Pakistan oo u baahan in tallaabooyin iyo waliba ISI-da oo hay'adda sirdoonka wadanka Pakistan ay dib u baaraan haddii aan dhinaca kala fiiriyo dalka Iran maanta madaxda sare ee dalka Iran waa ninka ugu sareeya ilaalada aan iraade kacaanka wadankaasi ee la yiraahdo Ayatollah Ali Khamenei ayaa jeediyay khudbad dheer oo xasaasi ah
telefishinada wadanka ayaa laga sii daayay ujeedaduna waxay ahayd bal in la ogaado sida arintan iyo tallaabooyinka dagaalka dadka ay ka helaan xogta ugu dambeysay khudbadiisu waxay socotay waqti dheer aad ayay dadku u daawanayeen sidoo kale waxa la socday istaraatiijistayaasha dagaalka hay'adaha sirdoonka adduunka macaahidda cilmi baarista iyo dadka arrimaha dagaalka ee gobolka aad u falanqeynayay waxa uu yiri dagaalka aan ku jirnay 12 maalin waxa lagu bartay quwadda ay leedahay dawladda islaamiga ah ee Iran waxa la ogaaday tabarta ciidamadeena ay leeyihiin inaysan ahayn mid lagu degdegi karo Pakistan waxa uu leeyahay iraahdo Iran waa wadan bir ah oo aan loo soo dhawaan karin Mareykanka waxaan gaarsiinay buu yiri dharbaaxa kulul oo uusan weligiis ku filanayn in dawladda Iran ay gaarsiin karaan waxaan duqeynay buu yiri saldhigga Aynul Asad iyo kan kale ee Al-Udayd la yiraahdo ee ku yaala gudaha wadanka Qatar waxa uu sidoo kale sheegay in Mareykanku uu dhowr jeer ku fakiray inaan isdhiibno laakiin taasi waxay noqotay mid aan waxba kama jirin shacabkan malaayiinta ah waligood isma dhiibin taariikhda reer Farisna aad ayaa loo yaqaanaa ayuu yiri midda kaliya ee la fahmi karana waa inay dad dagaal yihiin shacabka wadankiisa ayuu mahadcelin ballaaran u jeediyay waxaana uu ku yiri waxaad noqoteen geesiyaal dawladooda garab istaaga oo aan noqon kuwa aan waqtiga iyo cabsida gantaalaha aan lagu sasabin ugu dambeyntii waxa uu soo qaaday Israa'iil Netanyahu waxa uu yiri dawladda dhalanteedka ah ee Israa'iil ee haysata dhulka Falastiiniyiinta waxaan ku dhawaynay ilaa aan gaarsiino buu yiri inay ku sigata adduunka in laga waayo wax la yiraahdo dawlad Israa'iili ah hadalkan markii uu jeediyay kadib waxa ay noqotay mid warbaahinta adduunka ay aad u falanqeynayaan waxana ay ka dhigan tahay Iran inay hadda sheeganayso inay guul ballaaran ka gaartay dagaalkii bariga dhexe haddii aan adiga su'aal ku weydiiyo hadalka Ayatollah Ali Khamenei oo ku leeyahay Iran adduunka laga bartay waxay tahay gantaalaheedana waxay noqdeen kuwa cadawga ay ka argagaxeen ma kula tahay jawaabaha Iran ay bixisay inay tahay mid reer galbeedka Israa'iil iyo Mareykanku aad u xanuunjisay adiga su'aasha ku weydiinaya dhinaca kale war kale oo xasaasi ah ayay maanta sii daysay wakaaladda wararka ee Faris taas oo ay iminka xiganayaan warbaahinta kala duwan ee Al-Arabiya Al Jazeera Sky News iyo warbaahinta kale ee adduunka waxay leeyihiin Israa'iil bambooyinka ay tuuraysa waxa kamid ah nooc halis ah oo aadanaha noloshiisa aan u fiicnayn taas oo kamid ah uranium la qafiifiyay oo ay gantaalaha ku soo xireen taas oo ay rabeen inay ku dhalaaliyaan buuraha iyo dhulka iyo biraha adag ee difaacyada u ahaa xarumaha nuclear-ka ah ee dawladda Iran haddaba adeegsiga arintan ma waxay ka dhigan tahay nuclear-kii oo si fudud loo adeegsaday aan si kale kuugu sheego haddii ay arintan dhab noqoto oo baaritaanka ay sameynayaan dawladda Iran lagu xaqiijiyo in Israa'iil ay adeegsatay uranium waxa ay ka dhigan tahay in deegaanadii lagu dhufto oo dhan ay suni ku faaftay taas oo dadka neefsada ee jiida oksijiinta deegaanadaasi ay ka dhigan tahay inay xumad arki karaan oo ay qaarkood tilmaamayaan qubrada inay ka heli karaan ba ama ay qaadsiin karto suntaasi xanuunna ay kamid yihiin kuwa kansarka haddii ay tani soo baxdo ama arintan ay banaanka timaado waxay ka dhigan tahay dambi dagaal oo Israa'iil ay ka gashay gudaha wadanka Iran waxaana tani sidoo kale ay muujin doontaa awoodda jamhuuriyadda islaamiga ah ee Iran ee dagaalka ay ku lahayd taas oo Israa'iil qalqal gelisay sida caalamku uu aqoonsan doono soo dhawaada akhyaaray waa Cabdicasiis Barrow oo qaybtan inta ku gabagabeynaya si aad macluumaad iyo warar kala aad u heshaan ku soo biiray YouTube-ka noo subscribe saara nabadino Soomaali Quraan oo